dhaqanbiiska gaaladu wadiyo dhuranka reer waa deeq bixiyaalna dhadee oo tan aad iga duubayso kalu duubaya dabeetana xawl caalamiya buu gelinaya anigiina muslin ina muumin ahaa ayaa lay daawanaya anigoo leh WFP deeq bixiyaashii raasiqna alla ahaa markaa xeelada islaamka wuu kaa saaray dhaqanbiiska gaaladu wadiyo dhuranka reer neeto WFP waa dhadhamagoys kuwan tahriiba maaragtay magac baa horta jira allah inaga dhaafee la yidhi deeq bixiye carruurta aabbahood baa ku yidhi WFP baa risqa bixisa WFP-na saldhigeedu waa Yurub England baanay joogtaa carruurtii hotaa laamaduusay ubta badaa ku dhammaatay iyo xeebtan dheer ee Liibiya markaa dalkan ayaan u macaanayaa dadka dalkan Soomaalida af Soomaaliga lagaga hadlo baan u macaanayaa iyo waxa Ilaahay ku arsaaqay subxaanahu wa ta'aala carruurta waxaan leeyahay horta xagga Ilaahay ma jiray halkan aad u joogaa muslimku ku badan yahay bal idhagaysta taa labaysa xooluhu dameerna ha ahaadee heedhade dameerna wixii horta Ilaahay kugu asraabaa wanaagsan laakiin xoolaha ay Soomaalidu isticmaashaa waxa weeye adhigoo laba nooc ah oo idiiri la kala dhadde iyo lo iyo afra yandura ila ibili kayfa iyo geela doo Ilaahay si gaar ah waa maantay marka geelu wuxuu ka dhigay bina culus ciyaar looguma tago gabar qaaliyo la guursaday iyo nin geed lagu xidhay waxa mooyaan ciyaar looguma tago bisaaradoo dhan xaggan kala lagaga kacaa marka gabaygaas aan deemaka haya oo aan dee dhalinyarada Soomaaliyeed u haya oranaya dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan dhab ogeysiiyay dhadigiyo laboodkoodu waxaan dhaanto ugu qaaday dhagta maqasho waanada waxaan dhayda ka cadeeyay dhamidii Ilaahay halqay dhoobay nabi aadan ilaaha dhameeyay dhisay dhidbiyadoo taagay dhadigiyo Allihii labood ka dhigay labadan dhoomood dhimashiyo Allihii nolol dhalasho ku raacshay Allah dhoolgooda iyo dhibacan ku keenay rabbiga dhaqankan xoolaha naga dhaqaalaystay dhiig iyo Allihii u saxdood dayda naga siiyay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan dhab ogeysiiyay warooyay dhadhamada sidii buu u yahay dhaafa bixiyay wax kale oo dhigiisii ma dhicin dhugana maysaan dhaqanbiiska gaaladu wadiyo dhuranka reer neeto WFP waa dhadhamagoys walaakiin ma fahmin dhaqanbiiska gaaladu wadiyo dhuranka reer waa deeq bixiyaalna dhadee oo tan aad iga duubayso kalu duubaya dabeetana xawl caalamiya buu gelinaya anigiina muslin ina muumin ahaa ayaa lay daawanaya anigoo leh WFP deeq bixiyaashii raasiqna alla ahaa markaa xeelada islaamka wuu kaa saaray dhaqanbiiska gaaladu wadiyo dhuranka reer neeto WFP waa dhadhamagoys markaa laxdan ka bilaabay ammaanta dhaashan waa lax xooluhuna waa laba midab geeluna waa laba wax waliba labadaa midab bay leeyihin midabyadaa furuucya bixiya dhaashana malcadkeediiyo laxmadow dhere ku leylaysay dhoolbari lamoodii ay kolkay dhagor iftiimayso haysimadu dhammaanteeda see dharabta loo waabo lodoo dharabka joogta iyo ridow dhabu qalaadaysa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan dhab ogeysiiyay dhamidoodba xooluhu haddaan dhowray waa dahab ha yeeshee dhankii loo dhigaba dhidibku waa geel waxa dhaba dharaartay xuntahay dhaxalgal weeyaan dhammays curatay dhaamoogu dhala dhoohan sidigteeda ayuun dheragtay dhuuxweyne hor dhalansamow goodir dhuux deyrcad dhaldhalaalka madow midaba dhowr jaada galoof dhiraha lacdiya abeer aydin dhaga weyn leh dhaadheerka qaalmaa dhegtale dhalansamow baarqab dhugashadaba ratiga qarnaas looga dhigay dhowrta nabi aadan wadaad baa loo fariisiyana laba inkaarintee dhugashada ratiga qarnaas looga dhigay dhowrta nabi aadan xeru dhalan dhalgeel waa hidee dhaqanka loo doortay oo dhowr ay tirsay dhaxal uu raagay dhashu raacday dhayliya anfaco dheef mid laga quutay wadaad baa loo fariisiyo dhigana dhalaaca kagama dhacdo iyagoo kurusna oo iska dhasha dhashu raacday dhayliya anfaco dheef mid laga quutay eela way dhabaysiyeen dhirkaha dhanu dareerkooda dhadig iyo labood aaran dhaqan barbaaraya dhufaan hilib leh gool hilib dhidamay dhaamiyaha awrka dhaqayadoo kuwa xagdoodiya ka reeb dhiilka loo culaya dhiigga ayaa allihii isdhexdood dhayda naga siiyey dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan dhab u ogeysiiyey war dhagta maqasho waanada waxaan dhayda ka cadeeyey dhadhamada sidii buu u yahay
rabbigu dhaafa bixiyey wallaahi wax kaloo dhigiisi ma dhicin dhugana maysaan waar hooya dhaqanbiiskan gaaladu wadiya dhulanka reer neeto dhamaliyo f b na waa dhadhama goys haddaba geel hawshiisi baan ka sheekiyey dhulka wuxuu doonayaa meel adiga kugu daran may fahamtay berigi hore dee soomaalidu geelun bay isku layn jirtay iminka waxay isku jirtasaba la garan maaye waar garan mayna dhegeyso siyaasadna maaha waxaa la kala kakaysanaya diba meelu aaliiminaysay kama dheragta kayn adhi dhex maray waanay dharastaaye dhulkaa waxay ku leedahay baraan cidi ka dhaariyeen horteeda daaqin dhunyac faraq leh dhagcadow madheedh dhundha siya yooco kayn dhawr leh dhiiliya libaa xaarna dhacadiido dhabbaha la qajiifiya abays dhumuc yar goodaado tuugga dhadan dhateeyo dhurwaaga keeda dhaxay eegta dhab waxa uga xoorsada hadhuub nimuu soo dhib mariya dhabeella waxaa ka guursada nimuu dhira ku duuga dhowrna waxaa ka laylyada nimuu dhabac ku beega marka waxa weeyaan dee gabaygaasiba waa geela ma garanaysa oo dhallinyarana ku waaninayay